أنا عبد الرحمن حاج عمر إريتريا كميتي ويدا سومالي أنا كأسمر المنطقة كابزي نابزي علونا نابزي معذر علونا نابزي عبد الرحمن حاج عمر waa wiil 16 sano jir ah wuxuu raadinayaa uu safar dheer u soo galay hooyadii oo muddo 15 sano ka hor ugu dambeysay عبد الرحمن waxa uu ka soo socdaalay uu ka soo ambabaxay dalka Eritrea ee caasimadda Asmara isagoona yimid xeryaha qaxoontiga Doolow ee Soomaaliya si hooyadii oo caruurnimadiisa ugu dambeysay uu dib ugu helo عبد الرحمن aabihii waa Eritreyaan hooyadiina waa Soomaaliyeed magaceedana waa Samira عبد الرحمن aabihii wuxuu hooyadii ka qaatay amaba ka kaxaystay isagoo 1 sano jira sida ay sharaxayso hooyadan Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxoontiga ee Doolow waxayna ka waramaysaa dhibka haysta wiilkan da'da yar wiil yar oo maxaan ku dhahay ka yimid dalka Eritrea kuna dhashay dalka Eritrea magaalada Asmara ayaa nala jooga 3 bari gudood 3 barina islaamnimada indhaha kuulkooda iyo hooyada Soomaaliyeed maxaan ku dhahay xanuunka ay leedahay ayaana wada waxaan ku suganahay Doolow Soomaaliya maxaan ku dhahay wiilkan islaamnimo ayaan maxaan ku dhahay oo hadlaynaa una raadinaynaa hooyadii dalka Soomaaliya meel ay ka joogtana ma garanayno Raxmaan ma arkin weligii hooyadii Samira maadaama isagoo 1 sano jir ah uu aabihii ka kaxaystay hooyadii balse sabir ayuu ka haystaa hooyadii Samira oo ah sabir u muuqda waagii ee hooyadii Samira ee dhalinyarada ahayd 15 sano ayuu arag asagana 16 sano jira hooyadiina meel ay ku sugan tahay muu garanayo hadduu arkana sawirkeeda ayuu wataa hadduu arkana muu garanayo sawirka buu wataa marka dayna maqlayso iyo dayna aragtama si dhaqso badan inay uga soo jawaabtay wiilkeeda oo aad ugu murugaysan aragtideeda inuu arko Mira Yusuf Khadar asagana la yiraahdo Cabdiraxmaan Xaaji Cumar waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay yiraahdo maqal iyo muuqaal intii maxaan ku dhaayna dheehanaysay arkaysa wiilkaas hooyadii ninkii magaceeda iyo muuqeeda garanaya inuu soo qabto la soo xidhiidhiyo warbaahinta adduunka iyo caalamka Soomaaliya maadaama Cabdiraxmaan aanu aqoonin luqadda Soomaaliga balse uu yaqaan luqadda uu ku dhashay Eritreyaanka waxa uu soo raacay luqadda Xabashiga oo uu jabsanayo Cabdiraxmaan wiilka waa Eritreyaan afka ma yaqaan hadduu hadli lahaa xitaa uu Soomaalida dhex qaadi lahaa maxaan ku dhahay meel ay ku sugan tahay ogaan lahaa afkii buu garanaynin qof afkiisa garanayana ma jiro amxaariga ayuu jabsanaya af Eritrea bas uu yaqaan afka Soomaalida ma yaqaan marka waxaan ka codsanaynaa moobeelada iyo maxaan ku dhahay qoraalka xitaa muu garanayo marka waxaan ka codsanaynaa qofka maqalkii muuqaalkana waa kama inuu u soo qabto wiilkaas si dhaqso ah hooyadii Samira Yusuf Khadar Cabdiraxmaan waxa uu hamuun qabaa oo uu safarkan dheer u soo galay isagoona luqadda Soomaaliga aqoonin cid uu ku soo dago oo maciinsadana warkeeda badaaye sidii uu mar uun u heli lahaa hooyadii oo muddo 15 sano ah ka maqnayd ma ilaabin Cabdiraxmaan hooyadii Samira maadaama ay muddo dheer ay ka maqnayd walina waxa uu ku rajawan yahay in ay dib ugu soo laaban doonto mar uun hooyadii Samira ayna dib u midoobi doonaan labadooda aniga Cabdiraxmaan Xaaj Cumar Eritrea كميتي ويدا سومالي أنا كأسمر المنطقة كابزي نابزي علونا نابزي معذر علونا نابزي بوتي مالتنا نابزي سومالي علو مالتنا نابزي تركبك نابزي أي تركبك وقوة نابزي نابزي توبيا نابزي تقالو نابزي أي فلتو نابزي قلملي نابزي بلكا نابزي تحبركا نابزي كله سومالي نابزي عمارة نابزي سومالي كله أي تردخاقن نفسي كله على تركب كعجول فضلا سي شرقري muuqaalkan si Cabdiraxmaan fariintiisan ay hooyadii Samira ay u gaarto ama bacad garanaysa ay u aragto mahadsanidin